iminkana waxaan u yeedhaynaa warbixintii ugu dambeysay ee aynu maanta aynu jeedino maadaama waqtigii dhiman yahay guddiga khayraadka oo iyaguna warbixintoodii halkan ka soo jeediyay waxaan u yeedhayaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo warbixinta akhriyi doona jamaal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأنبياء المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قدوميها قلها وكيلة جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرزاق خليفة أحمد مدنياشا قلها وكيلة متشرف الخلايا الصحافة دمانتين وحنا بكل سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كديب halkan waxaan ka soo jeedinayaa warbixintii guddiga khayraadka dabiiciga deegaanka wax soo saarka iyo tamarta ee kala fadhigii koobaad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kala fadhigii koobaad ee guddiga kala fadhigii koobaad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland guddiga deegaanka tamarta iyo wax soo saarku iyagoo gudanaya sida uu dhigayo xeeroosaadka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 8 guddigan oo xil saaran tahay goloweynaha ugu xil saaran tahay arrimaha deegaanka khayraadka dabiiciga wax soo saarka iyo tamarta kulamada ay kala fadhiga koobaad guddigan yeelatay oo ahaa 4 kulan oo kulanka koobaad ay waxa kulankii wakaaladda biyaha Hargeysa kulanka labaad oo ahaa Teacher Conversation Fund CF hay'adda la yiraahdo iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta sidoo kalena ay la kulantay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga kulankii koobaad oo 22 December 2021 ay guddigu ugu yeedhay wakaaladda biyaha Hargeysa kulankaas oo ahaa isbarasho iyo xogogaal u noqosho ay guddigu u noqonaysay xaaladda wakaaladda biyaha Hargeysa oo ay yimaadeen maareeyaha wakaaladda biyaha iyo tiimka la shaqeeya ay guddiga hor yimaadeen waxay wakaaladda biyaha Hargeysa ay noo sheegeen in biyaha Hargeysa oo in muddo aba ay dadaal ugu jireen sidii ay Hargeysa u heli lahayd biyo ku filan isla markaana fayadhowrkooduna wanaagsan yahay magaaladana gaara waxay noo sheegeen in biyaha magaalada Hargeysa ay u qaybsan yihiin laba qaybood qayb magaalada dabadda ah oo magaalada dabaddeeda iyo qayb magaalada gudaheeda qaybta magaalada dabaddeedu waxay sheegeen inay ka kooban yihiin ceelasha biyaha ee marka hore magaalada u diyaariya kuwaasina waxay ahaayeen bay sheegeen inay ahaayeen 14 ceel 14 ka ceel imka waxa shaqeeya oo ay wakaaladda biyo noo sheegtay inay ka shaqeeyaan 12 ceel marmar baa lagu daraabay yiraahdeen hal ceel oo noqdo ceelka 12aad qaybta labaad waxa weeye barkadaha biyaha oo magaalada dhaxmara qaybta gudaha magaalada nidaamka biyaha ee Hargeysa ee magaalada dhexdeedu waxay sheegeen inay 162 kilomitir yihiin waxayna magaaladu leedahay 4 kayd biyood oo kala ah sida barkada dhexe ee Sheydaha barkada Maxamuud Haybe barkada Axmed Dhagax iyo barkada Gacan Libaax waxaanay sheegeen iminka inay shaqayso oo kaliya 4 kayd hal kayd oo ah kaydka barkada Sheydaha waxay kaloo noo sheegeen wakaaladda biyaha Hargeysa in mashaariicda biyaha Hargeysa ay jiraan mashaariic waaweyn oo ay bixiyeen imika ay mashruuca iyada ugu weyn ay ka mid yihiin sanduuqa horumarinta Somaliland SDF waxay kaloo sheegeen inay jirto maalgelin ballaaran oo ay samaysay dawladda Germany oo ah bay yiraahdeen qaybta ugu weyn
arrintan gacanta ka geysatay sidoo kale AU-duna waxay noo sheegeen inay runtii iyaguna ay ku sameeyeen ay maalgashi ay ku sameeyeen inay wax ka qabtaan biyaha Hargeysa marka iyadoo arrimahaas oo dhami jiraan waxaan halkan raacinayaa oo aanu raacinay annaga wixii nooga soo baxay kulanka aanu la yeelanay wakaaladda biyaha iyo tala soo jeedintii aanu galweynaha u soo jeedinay annagoo guddiga khayraadka dabiiciga ah wax soo saarka iyo tamarta waxa aanu u soo jeedinaynaa galweynaha in wakaaladda biyaha marka loo eego hawshan oo biyo ballaarinta Hargeysa muddadii iminka 10 sano ugu dambeysay hawshaas oo caalamku si weyn u dardargelinayay iyo shacbiga magaalada Hargeysa oo aan intaa helin biyo ku filan in arrintaas si degdeg ah magaalada Hargeysa goluhu arrintaa loo soo jeediyo wakaaladdu in arrintaa xil la iska saaro oo arrintaas ay magaalada ay hesho runtii biyo ku filan sidoo kale arrinta kale ee muuqatay waxa weeyaan in 9,000 oo shilin oo ahaa 1 mitir cube oo shilinka Soomaaliland ah iminkana ay wakaaladda biyuhu geysay 14,000 oo mitir cube 14,000 maraya halkii mitir cube waxaanu soo jeedinaynaa galweynaha u soo jeedinaynaa in aanu haysanin oo goluhu lacagta ay sheegtay wakaaladdu aanay haysanin xeerkii ay ku jidaysay ama ay lacagta ay ku qaadaysay sidoo kale waxaa jira oo soo baxay in shacab weynaha magaalada Hargeysa degani ay jirto oo si weyn ay cabasho weyn nooga timi oo guddi ahaanna la soo gaadhay oo ay aad uga cabanayaan in ay wakaaladda biyuhu ay hayso saacad ay iyadu iibinayso oo ay xabadda saacadana qiimaheeda ku iibinayso $50 arrintaas oo ay dadku aad uga cabanayaan wakaaladda markii aanu weydiinayna sababihii ay noo sheegeen noola muuqatay inaanu galweynaha la wadaagno aanuna aragnay runtii waxa weeyaan in si shacabka nugul ee magaalada Hargeysa degan loogu daneeyo in la heli karaayay wadooyin kale oo la maro marka waxaan soo jeedinaynaa in wakaaladdu ay samayso oo u ogolaato in saacadaha kale ay dadku iibsan karaan iyadoo ay ixtiraamayso suuqa xorta iyo dastuurka iyo xeerarka waddanka u yaala saacadana runtii waxa weeyaan kaliya ee kootada ku noqotayna ee qiimaheeduna aad ka u sareeyana runtii arrintaana ay tahay taan golaha la wadaagayno sidoo kale guddigu waxay la kulantay 23 September 2021 guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarku kulankii labaad waxay la yeesheen hay'adda daryeelka duurjoogta ee Cheetah Compensation Fund CCF la yiraahdo kulankaas oo daaranaa isxog waraysi iyo sidii looga wada shaqayn lahaa xeerarka la xiriira daryeelka kaymaha iyo duurjoogta ugu dambeyn waxaanu kulanka ka soo baxay koow in wada shaqayn fiican ay yeeshaan guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah wax soo saarka iyo tamartu iyo ururka Cheetah Compensation Fund CCF loo soo gaabiyo laba in la dardargeliyo xeerarka kaymaha iyo duurjoogta si wada jirana looga wada qayb qaato saddex in la dhiso guddi xeerku sheegay si degdeg ahna loona kulmo arrintaasna guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka hogaamso kulankii saddexaad guddigu waxay la qaadatay wasaaradda macdanta iyo tamarta oo aanu la yeelanay 3 kulan oo aanu maalin walba ku qaabilay aanu golaha ugu yeedhnay isla markaana nooga warbixisay 3 aag ee ay u qaabilsan tahay shaqada wasaaradda
oo kala kow aaga shidaalka laba aaga macdanta saddex iyo aaga tamarta aaga macdanta wasaaradda macdanta iyo tamarta oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo agaasimayaashiisu runtii waxay nooga warrameen hawlaha oo ay guddiga uga warrameen hawlaha ay wasaaraddu aaga macdanta uga hayso qaranka isla markaana waxay nala wadaagtay heshiisyada iyo shirkadaha iminka iyo gobollada ay ku sugan yihiin iyo shirkadaha jooga iyo magacyadooda iyagoo ay dhowr goobood oo iminka ka mid ah sida gobolka Sanaag oo kale oo ay joogaan shirkadda xidid madow oo exploration ka wada oo qaybta dahabka rooble oo iyaduna Sanaag iyo awdal ka wada togdheer oo magaalada la yiraahdo togdheer gobolka togdheer Fiqi Ayuub meesha la yiraahdana waxa iyadana ka socota arinta macdanta marka runtii sidoo kale waxaan wasiirka aan iska xog wareysanay oo xog waran ka siiyay aaga tamarta oo runtii mashaariicda aaga tamarta ay ugu waaweyn iminka ay yihiin bay yiraahdeen mashruuc ay dawladda Ingiriisku inaga caawiso oo la yiraahdo energy security oo la doonayo in runtii Soomaaliland ay tamar ku filan hesho runtii waxa weeye arintaas waxay noo sheegeen in mashaariicdaasi iminka socdaan ay meel wanaagsan marayaan waxa weeyaan ay iminka qaarkood gabagaba yihiin sidoo kale na heshiis inay la galeen kambaniyada ka shaqeeya shirkadaha markii hore bay yiraahdeen joogay ee ku jiray aaga tamarta oo haday Boorame iyo Gabiley burco buuhoodle iyo baran shaariicdaasi muddo u socdeen bay yiraahdeen waxa weeyaan guddigana waxay u ballan qaadeen inay ay arintaasi ay goobahana ay runtii geyn doonaan ay guddiguna ay soo arki doonaan kulamada dambe kulankii saddexaad waxaan sidoo kale iyadana waxa weeyaan qaybta shidaalka ayaa wasaaraddu runtii aanu aad runtii uga xog wareysanay halkay marayso xaaladda sahaminta shidaalka oo runtii waxa weeyaan ay yiraahdeen nimanka waxa in dawito waxa ay sidaad ogeydeen ay wax badan ay noo sheegeen inay kaga xidhan yihiin xeerarka halkan yaala ee golaheena hor yaala marka arintaasina waxay tilmaameen markay inay arinta doonayeen inay aad u degdeggeliyaan marka oo xeerarkaasi ay runtii ay dhaqan galaan sidoo kale waxaanu la kulanay 29 September 2021 wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga kulankaas oo runtii ahaa isaguna isbarasho iyo xog wareysi waxa guddiga la kulantay wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo sheegtay inay aad u ilaaliyaan ama imika uga shaqeeyaan ka hortagga xaalufka baan ee waddanka ka socda waxaana ay runtii aad iyo aad runtii walaac weyn uga muujisay in ay arrimo badan runtii waxa weeyaan ku gadaaman yihiin arrimaha waxay sheegtay caqabad badan oo ka hortaagan inay la dagaalamaan xaalufinta deegaanka sidoo kale waxay sheegtay in xeerar ka baxay golayaasha qaranka ka baxay oo ka mid yahay xeerka kala xadeynta xeerka ay ka mid yihiin siday xuduudaha ay ku wada shaqeynayaan wasaaradaha xeerkaas inuu runtii caqabad ku yahay sida wasaaradda beeraha oo kale oo inta badan dhacaan inay meelaha qaar conflict interest ka yimaado oo wasaaradaha ay soo galgalaan marka waxay kaloo sheegtay in guddiyo badan oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo in badan la magacaabay oo heer madaxweyne lagu magacaabay inaanay guddiyadaasina haba yaraatay aanay waxba ka shaqeynin iyadoo guddiyada waxa ka mid ah oo runtii goluhuna weydiiyay wasiirka guddiga khayraadka waxay ku leedahay oo xeer jideeyay in guddiga xubin golaha guurtida iyo xubin golaha wakiilada ay ka mid noqdaan
guddiyada deegaanka oo kale guddigaas oo kale waxay sheegeen oo runtii ay ahayd inay wasiirku soo saarto guddigaas oo kale lama soo saarin oo waxa weeye waxyaabaha kulanka nooga soo baxay bay ka mid tahay wasiirkuna runtii way qiratay inaanay arrintaasi jirin waxyaabaha nagu kalifayna waxaa ka mid ahaa bay yidhaaheen markii guddiyo galo wasiira oo in badan loo saaray ilaa madaxweynayaashii hore loo saaray ay midnaba ay wada shaqayn kari waayeen oo ay runtii lagu guulaysan kari waayeen iyagoo guddigaasi madaysan inay wada shaqeeyaan waxay sheegtay niyad jab soo wajahay runtii inay arrintaasi aanay tallaabo qaadin wasiirku waxay noo sheegtay oo kale inay shirkadaha soo dejiya si ay deegaanka ay kor ugu qaadaan shirkadaha gaaska soo dejiya inay runtii cashuur dhaaf u sameeyeen waxaana shirkadaha gaaska soo dejiya aanu heshiis kula galay bay yidhaahdeen in haanta gaasta ee salandarka ahi aanay qiimaheedu dhaafin $17 sidoo kale waxaanu samaynay bay yidhaahdeen 5,000 oo qoys oo danyar ah oo aanu ka daboolnay bay yidhaahdeen 60% qarashka lagu iibsado haanta gaaska taasoo ay naga caawiyeen bay yidhaahdeen shirkadaha Telesom iyo hay'adda UNDP sidoo kale wasaaraddu waxay noo sheegtay waxaanu sanadka noo qorshaysan bay yidhaahdeen in ka badan 500 oo qoys in iyo 200 oo hudheel oo aanu ka joojino dhuxusha oo aanu ku caawino bay yidhaahdeen gaasta cuntada waxa kale oo wasiiraddu noo sheegtay in seerayaasha ay xidheen gacantana ay ku hayaan kuwaas oo kale ah seeraha bancawl seeraha xudun iyo seeraha aroori iyo sidoo kale seeraha geed deeble waxa kale oo jira bay yidhaahdeen seerayaal ayaa jira bay yidhaahdeen kale waxaana meelaha oo ah meelaha dabiiciga ah ilaa iyo 7 ka mid ah ayaanu cilmi baaris ku sameynay bay yidhaahdeen 4 ka midana waanu maamulaa oo gacanta ayaanu hadda ku haynaa bay yidhaahdeen waxaanay kala yihiin gacan libaax yeelay buurta wagar iyo buurta daalo haddaba markaynu aragno runtii waxa weeyaan arrintaa ku saabsan xagga cashuur dhaafka loo sameeyey saadogtiin mudane guddoomiye mudanayaal golahan aynu wakiiladu oo ka mas'uula runtii waxa weeye shacbiga Soomaaliland ay soo doorteen markasta soo jeedinaha iyaga waxaan ku salaynaynaa duruufaha iyo danaha shacabkeena ku xeeran sidaa daraadeed maadaama wasaaradda deegaanku ay u samaysay shirkadaha gaasta soo dejiya wadanka gaasta la shito ay noo sheegtay wasiirku inay cashuur dhaaf u samaysay waxaad ogtiin iminka muddo bil gudaheeda oo intii golo fasax ahaa inay isu yimaadeen 3 shirkadood oo wadanka gaasta keena oo 3 shirkadood oo wadanka gaasta soo dejiya isla markaana ay qiimihii wasiirku ay noo sheegtay inay kula heshiisay inaanay $17 dhaafin habada salandarka ah ee gaasto inay yiraahdeen waxaanu ka dhignay $19 wasiirkuna ay noo sheegteen cashuur dhaaf loo sameeyay arrintaas waxaanu galweynaha u soo jeedinaynaa in arrinta xeer halka arrinta amendment lagu sameeyo sababta la cuskaday ee markii hore oo la baabiyo runtii waxa weeye cashuur dhaafka markii hore la sameeyay maadaama ay qiimaha ku joogay sidoo kale waxyaabaha xusidda mudan ee wasiirku noo sheegtay waxa ka mid ahayd in ay hore ay uba keeneen bagaastiba intaana dunida gaastu qaaliyoobin ay cashuur dhaafka hore ugu sameeyeen marka maadaama adduun weynaha imika qabooba oo xilli qabooba la galayay ay yiraahdeen wasiirku noo sheegtay qaar alaabtoodii imika taalaabo way keeneen bay yiraahdaan arrintaasina runtii markaan guddi ahaan aragnay waa arrin bay nala noqotay runtii aan aad uga yaabnay marka arrintaa inuu galo runtii waxa weeyaan oo iyadana uu qaraarka qaataan ku soo jeedinaynaa sidoo kale waxa dhawaan xubno guddiga oo hogaaminaya guddoomiyaha guddigu ay ku tageen gobolka Sanaag safar shaqo ay ku tageen oo ay ku wehelinayeen hawlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ay safarka ay qayb ka ahaayeen runtii waxa weeyaan arrintaasi laba ujeedo safarkaasi lahaa sharaa'id
mashaariic halkaa ka wada oo sida shirkadda xidid madow oo kale la yidhaahdo oo halkaa mashaariic ka wada in lasoo kormeero oo guddigu soo eegto iyo wasaaraddu iyo oo ay halkaas ay kormeer ku sameeyeen runtii iyo mashruuc kale oo isagana la yidhaahdo waxay kaloo soo eegeen guddigu dekadda maydh laga dhisaya bay soo eegeen oo ay kormeer ku soo sameeyeen oo dhismaheedu socdo lagana yaabo inuu dhammaado bisha March loo sheegay inuu dhammaanayo bisha March sanadkan soo socda ee 2022 sidoo kale guddigu waxa ay booqasho ku tagtay warshadda leerka Ceerigaabo sibka la yiraahdo kaasoo ay warbixin kaga dhageysatay maamulka shirkadda waxaana ay halkaa ka socday oo ay arkeen solar systemka iyo oo iminka iyadana halkaa ay ka dhaqan galay ama iminka halkaa waxyaabaha ka socda ee mashaariicda ka socota ay ka mid yihiin sidoo kale ugu dambeyn saad ogeydeen waxaa golaha horyaal oo guddigu ay xeer ku haysay xeerka sahaminta xeer baa horyaalla xeerka sahaminta iyo soo saarka shidaalka oo xeerkan oo goluhu moosho ku keenay oo ka mid ahaa xeerkii uu ansixiyey golihii wakiilada inaga horreeyay kana soo noqday golaha guurtida xeerkaas oo gacanta guddiga ku jiray waxaanu samaynay xeerka workshop aanu qabanay oo ay guddigu aanu arrintaas oo aan uga shaqaynay workshopka waxaa ka soo qayb galay oo runtii kulankaasi furay maalintii koobaad gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaana ka soo qayb galay wasaaradda macdanta iyo tamarta jaamacadaha Hargeysa jaamacadaha Golis iyo runtii khubaro aad ugu xeel dheer arrimaha batroolka iyo shidaalka iyo dad badan oo aqoon-yahana arrimaha waxaanu ku lafagurnay oo ku faaqidnay runtii mustaqbalka xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo xeel dheerayaal badani ka soo qayb galeen runtii halkaasna uu khudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada isla markaana uu aad ugu nuxnuxsaday runtii muhiimadda uu xeerkani u leeyahay runtii qaranka Somaliland iyo inuu helo maalgashi shisheeye dhammaanna ka soo qayb galayaashina ay la isku wada raacay inuu xeerkaasi u yahay xeer aad iyo aad u muhiima isla markaana aad iyo aad looga shaqeeyo xeerka qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay dadkii aqoon-yahanka ahaa iyo guddigii iyo markii la isla eegay ka soo baxay wuxuu noqday si xeerkaasi runtii loo ilaaliyo dastuurka qaranka in xeerka dib u eegis iyo sixitaan wax ka bedelka lagu sameeyo xeerkii uu soo saaray golaha guurtida oo kaliya mudane gudoomiye iyo mudanayaal ugu dambeyntii waxa kale oo jira oo aanu golaweynahana aanu u soo jeedinaynaa inay jirto hay'ad la yiraahdo hay'adda tamarta hay'adaasi runtii waxa weeyaan lamaan kulmin laakiin markii aanu baadhnay arkeefiyada iyo xeerarkii hore iyo xeerkii tamarta ee la dhaqan galiyay waxaa noo soo baxday in hay'adda ay tahay hay'ad sharci darro ah hay'adda tamarta waddanku isla markaana aan dastuurka iyo xeerarka waddanka midna ku shaqaynaynin isla markaana goloweynaha waxaan u soo jeedinaynaa in hay'adda gabi ahaanba laga saaro miisaaniyadda qaranka isla markaana laga tirtiro runtii waxa weeyaan xeerkaana laga shaqeeyo goluhu ka shaqeeyo si uu u helo goluhu runtii waxa weeyaan wuxuu awoodaha iyo dastuuriga ah uu goluhu haystay soo ka faa'iideysanaya runtii in hay'addaana la cayriyo talaabo laga qaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh السلام ورحمة الله وبركاته.